Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale iyo website-ka waxkabara.net magacayguna waa maxamuud axmed xaaji casharkani waa casharkii sideedaad waxaan ku baranaynaa this and those ayaan ku baranaynaa this and those ayaan ku baranaynaa alright waxaan soo baranay this iyo that ayaan soo baranay this and that waa hal shay markaa isticmaalayna this ayaan dhahnay markaa inta yaalo markuu kaa fog yahayna that ayaan dhahnay laakiin markay ashyaadu badan yihiin maxaa leenahay waxaan isticmaalaynaa these and those ayaan isticmaalaynaa marka waxaa lagu dhahay marka intaan ayaa qoranaysaan use these and those when you are referring to more than one thing markaad tilmaamayso wixii hal shay ka badan ayaa use these and those loo isticmaalaa to show who owns the things you can use determiners or possessive pronouns si aad u tilmaamto qofka iska leh shaygana waxaad isticmaali kartaa determinants or possessive pronouns waan soo qaadanay determinants iyo possessive pronoun possessive pronoun lahaansho weeyaan alright marka waxaan dhahnay tusaalahan marka waxaan naqaanay this is my bag tani waa boorsadeeda soo maaha tan markuu hal sheega weeyaan tani waa boorsadeeda laakiin markay badan yihiin maxaa leeyahay these are my bags kuwani waa boorsadahayga alright waxaa kaloo jirta marka wixii marka iga fog tahay oo kale maxaan dhahaye that is my bag taasi waa boorsadeeda markii ayagoo badan iga fog yihiin maxaa leeyahay those ayaan leeyahay those are my bags kuwaasi waa boorsadahayga alright these are my bags and those are your bags kuwani waa boorsadahayga kuwaasina waa boorsadahaaga waa fahanteena rajaynaya marka aad buu u fudud yahay casharka spelling rules for plurals shuruucdiisa marka maxaa la sameynayaa plurals waxaa la dhahaa jumlada ayaa la dhahaa jumlo wixii hal shay ka badan si aad plural uga dhigto s ayaad ku daraysaa hal book handoo ahay oo kale waxaa leedahay book ayuu ahay books ayaa leedahay s ayaa ku daraysaa badidood s ayaa ku daraysaa books pens lamps iyo wixii lamidka houses iyo wixii lamidka laakiin waxaa jiro sharcigaasi waxaa jiro kuwo kasoo reebmaya ayaa jiro oo waxaasi ama s aana qaadanayn wax ka duwan qaadanayo kuwaas maxay yihiin kuwaas waxa weeyaan kuwa x ku dhammaanayo iyo kuwa ch ku dhammaanayo iyo kuwa waa qoranaysaa marka intaan qorta marka waxaa leedahay marka intaan waxaa qoranaysaa for most nouns to make plurals add s magacyada badidood intaas qorta marka kadibna tusaalahan qorta kadibna riigo cusub sameysta qaybta hoos usoo gudba kadibna intaan qoro marka for nouns ending in x magacyada ku dhammaanayo x ch ku dhammaanayo iyo sh ku dhammaanayo you add es kuwaas waxaa lagu darayaa es ayaa lagu darayaa es ayaad ku daraysaa kuwaas marka tusaalahaan oo kale watch oo kale hadda waxay ku dhamaatay ch ayay ku dhamaatay soo maha ch maadaama ay ku dhamaatay waxaan ku darnay es brush sh ayay ku dhamaaday asaga waxaan ku daraynaa es brushes ayaa leenahay brushyal saacado box x ayuu ku dhammaanayaa es ayaa ku daraynaa boxes ayay noqonaysaa boxyal alright magacyada ku dhammaanaya marka intaan kalena qortaa for nouns ending in consonants followed by y drop the y and add es magacyada ku dhammaanayo consonant waa qaadana book level 0 ayaan kusoo qaadana alphabetka consonant waxaa la magaca erayga xarafka shibanaha ayaa la dhahaa xaraf shibane oo ay soo raacday y xaraf shibane oo kadibna ay y soo raacday marka hore shibana ayuu ahay r ayuu ahay kadibna y ayaa soo raacday y ayaa u dambaysa waxaa sameynaysaa drop the y-da ayaa tuuraysaa kadibna ies ayaad ku daraysaa dictionary ayuu ahay r iyo y ayaa u dambeysay y-da ayaa la tuurayaa es ayaa lagu daraya kadibna ies dictionaries ayaa leenahay alright waa fahanteena ma leenahay sharciga marka pluralka sidaan weeyaan sidaan ayaa u qoranaysaa alright waxaa noogu xiga marka determiners and pronouns ayaa noogu xiga alright you can use determiners or possessive pronouns to explain who owns something waxaad isticmaali kartaa determiners ama possessive pronouns waxaad isticmaali kartaa you can use determiners waxaad isticmaali kartaa determiners ama possessive pronouns to explain who owns something si aad u sharaxdo qofka iskale shayga tusaalahaan oo kale kan waa determiner way soo this
are mine. Kuwani, and these are my books. Kuwani waa buugaagteeda. These are my books. Kuwani waa buugaagteeda. Alright. Markii laakiin wixii la sheegayay ama wixii la lahaay markay soo hormaraan maxaa leenahay marka? These books marka wixii la lahaay ayaa soo hormaray. Qofkii lahaay weli lama sheegin laakiin wixii la lahaay ayaa soo hormaray. These books buugaagtani are mine. Waa kuwayga. Are mine ayaa noqonaysaa. Mine waa kuwayga. Buugaagtani waa kuwayga. Mine marka waxa weeyaan waa possessive pronoun ayaa la dhahaa. Possessive pronouns. Marka waxay imaadaan after the verb ayay imaadaan. Verbka waa kana, main verbka waa kana. Verbka ayay kasoo dib maraan. Verbka ayay kusoo xigsadaan. Laakiin determinants verbka ayay kasoo hormaraan ayaga. Marka waa kana nidaamkooda marka how to form sidaan u qorto marka jadwalkan ayadan. Determiners iyo pronouns. My markay tahay mine ayay isku bedelaysaa. Your markay tahay waxayga markay tahay yours ayay noqonaysaa. These books are yours. Kuwani adiga iska leh. His ayay noqonaysaa. His isbedelis marka. And this is his pen. Kani waa qalinkiisa. This pen is his ayay noqonaysaa. Her s ayaa raacaysa hers. This pen is hers. Qalinkani waa qalinkeeda. Waa hers waxeeda. It is na isbedelayso. Our. Theirs. Waa fahanteen arjinaya. Marka sidaas u qorta ayagana. Alright, marka casharka halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. Insha Allah u diyaar garooba casharada xigo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.